wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Somaliland Liban Yusuf Cismaan oo howlo shaqo ku yimid waddanka Djibouti ayaa wuxuu soo booqday safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti waxaana wasiir ku-xigeenka safaaradda ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed wasiir ku-xigeenka ayaa kormeer ku soo maray qaybaha ay ka kooban tahay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti intii uu ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland dalka Djibouti ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah danjirayaasha dalalka shisheeye u fadhiya waddanka Djibouti waxaana la kulankaasi qayb ka ahaa safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo uu helinayo safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti ayaa la kulmay qaar ka mid ah xukuumadda Djibouti sida wasiirka cadaaladda ee waddanka Djibouti waxaana kulankaasi la iskula soo qaaday sidii cilaaqaadka loo sii xoojin lahaa Somaliland iyo Djibouti maanta waxa booqasho noogu yimid safaaradda Somaliland ee Djibouti wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga wasiir Liban oo runtii waxa la wasiir ku soo dhawow dawlad arkaysa safaaradda wata soo shaqeynayso shaqaalihii isbedelka ka muuqda wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow jamhuuriyadda Djibouti iyo runtii safaaraddeennaba xukuumadda Djibouti runtii aad iyo aad bay noola shaqaysaa madaxweynuhu u horeeyo iyo xukuumaddiisaba runtii waxaan leenahay soo dhaweyn wanaagsan wasiir safar laba cisho qaatay oo ku joogay dalka Djibouti jamhuuriyadda Djibouti oo ujeedadiisu ahayd booqasho aan ku imid safaaradda Somaliland ee dalka Djibouti maadaama aynu sanad kala guura ku jirno oo sanadkii hore dhamaanayo inaynu qiimeeyno shaqadii safaaradda Djibouti ay u haysay dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland ama dalka jamhuuriyadda Somaliland iyo shaqadii ay ka haysay waddanka Djibouti oo runtii aanu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda xafiiska oo ugu horeeyo safiirka safaaradda Djibouti ee Somaliland Ambassador Abdifataax iyo howlwadeennadiisa kala duwan runtii waxaa noo soo baxday in xafiiska Djibouti muddadii sanadka ahayd ee imika aynu muxuu ahaa dawladda cusub jirtay shaqo aad u badan oo xooga laga qabtay hadday noqoto adeegyada la siiyo muxuu ahaa dadka reer Djibouti iyo dadka jamhuuriyadda Somaliland ay safaaraddu bixiso iyo hadday noqoto isku xidhka labada waddan ee Djibouti iyo Somaliland runtii isbedel xoog leh oo runtii ayaa ka muuqda safaaradda aad iyo aad bay ugu amaanan yihiin safiirka jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Djibouti Abdifataax Ambassador Abdifataax iyo tiimka la shaqeeyaba runtii waa tiim howlkara oo hawshooda ka soo baxay waa ku amaanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo ku sugan waddanka Djibouti ayaa wuxuu soo booqday safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti waxaanu xafiiska kula kulmay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti